muqdisho toddobaadkan waxa ay martigelisay roob aad u xoogan dabcan marka aad jaleecdo guryaha dhaadheer wadooyinka cusub iyo xabaaraha ay ku socdaan dhismayaasha magaalada waxa hubaal ah oo aan shaki ku jirin in muqdisho ay si xawli ah u dhisantay si la yaab lehna ay u soo kabsanayso balse bilicdaas dibadda ah roobku wuxuu inoo cadeeyay in aysan mar walba ka tarjumaynin tayada dhismaha ee guryaha si aad u fahanto baaxadda dhibaatadan waraaqdan aan gacanta ku hayo waxa ku diiwaan gashan 89 cabasho oo na soo gaartay intii u dhaxaysay Khamiistii ilaa habeenkii Jimcaha dadka cabashada soo gudbiyay dhammaantood waxa laga wada qoray hal dhibaato biyo ayaa inooga soo daatay saqafka sare iyo albaabka intii uu roobka socday laakiin nasiib wanaag waxa arrintaas si degdeg ah u xaliyay intooda badan kooxdana farsamada boqolkiiba 80 waxa dhici karnaa waxa u badan cabashada ka imaanaysa daaqadaha badankoodu waxay ka cabaadaan daaqadaha oo roobka ugu soo galay dhibaatadan ma ahan musiibo dabiici ah ee waa gacan qurmis ka dhalatay farsamo xumo iyo in la fududeystay halbeega dhismaha daaqadaha iyo albaabada oo aan loo sameeynin siilin sax ah misna aan la marin maadada silikonka ee loogu talagalay marka daaqadaha aluminiumka la gelinayo gidaarka badana waxa soo hara daloolo yar yar farsamo yaqaanada qaar ma isticmaalaan maadada silikonka ee loogu talagalay in ay dilaacidaas xirto si ay biyaha dibadda isaga celiso sidoo kale daaqadaha hoostooda looma sameeyo meel yar yar oo biyaha is aruursada ay dibadda ugu baxaan taas oo keenaysa in biyaha ay qolkaaga si toos ah nasiino ugu soo raadsadaan shubka kaligiisa biyo ma celin karo haddii aan si sax ah loo daaweyn marka saqafka sare ee shubka ah la dhisaayo marnaba ma noqon karo mid 100% biyaha celin kara haddii aan si sax ah loo saarin maadada loo yaqaano waterproofing muqdisho guryo badan saqafkooda sare dusha lagama mariyo walxaha biyaha celiya intaas waxa dheer saqafku ma lahan godadka biyo mareenka ee loo yaqaano weep holes kaas oo biyaha u kaxeeya dhanka tubooyinka farsamadan oo aan la adeegsanin ayaa keenta in biyaha saqafka sare ay fariistaan marka ay biyaha maalmo halkaas ku nagaadaana waxa ay si tartiib ah u dhex galaan shubka ilaa ay soo gaaraan saqafka hoose ee qolka taas oo keenta uumi iyo ur maxsanid sida aad sheegtay dhibaatooyinka ma aha mid dabiici ah waa cillad si fudud looga hortagi kara ama looga hortagi karay xilliga dhismaha aad maasan tahay waa su'aal qurux badan run ahaantii guriga haddii aan loo sameyn tubooyinka qaadi kara biyaha roobka inta badan biyuhu waxay mar walba raadiyaan meesha ugu hooseysa ee dhismaha haddaba guri dhisidiisa ama iibsashadiisa waa maalgashiga ugu weyn oo qofka uu sameeyo in alaabtaada iyo naftaaduba ay biyo dhex fariistaan weliba iyadoo waqti iyo dhaqaale ay kaaga baxeen waa wax aan la aqbali karin waa xilligii aan ku gudbi lahayn guri qurux badan ayaa la ii dhisay oo aan u gudbi lahayn guri tayo leh oo la isku haleyn karo ayaa la ii dhisay farsamo xumada maanta waa qarashka joogtada ah ee berito haddii aadan hubin tayada aasaaska ee biyo celiyaha iyo xirfadda injineerka dhisaya gurigaaga roob kasta oo daa wax uu ku noqon doonaa welwar hor leh intii uu ku noqon lahaa raxmad aad ku diirsato